soo dhawaada barnaamij aan diiradda ku saarayna dooxooyinka dharar oo isbedel ballaaran ay ka muuqdaan. Nugaal baale sool baale sanaag baale waxa weeye dhul baa xaalufay oo aan geed ku arkayna dadal sanaag baa ka mid ah. waxay dooxooyinka dharoor bariisamaadka ahayeen kuwo la xirmeeyay isla markaasina ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ay xil gooni iska saari jiray waxayna ka mid tahay labada dooxo ee ugu weyn guud ahaanba Soomaaliya waana dooxada labaad marka laga yimaado dooxada gobolka Nugaal. hadda waxa uu shaqada ugu dambeysay qaban waxay ahayd xirmada oo aan kala shaqeynay gobolka bari maamulka aad buuna arrinkaas u hirgalay waana markii ugu horeysay ee muddo 30 sano ah dooxo ku taala Soomaaliya la xirmeeyo waxayna dooxooyinka dharoor ay noqdeen kuwo muddo 2 sano ay u dambeysay xirmeen lagu sameeyay bishii 7 2019 inoo furan yahay. haddaba aan ku bilownay sida ay dooxooyinkan u ahaayeen muddo 30 sano ka badan kuwa aan wax biyo ah marin isla markaasina baad ka bixin mar haddii dhulkii guuray oo waxaan arkayno waxay ahayd dhul abaar oo boor baa ka kala jiray. dooxooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah dooxada la yiraahdo Jabgoble oo ka mid ah dooxooyinka dharoor ee bariisamaadkii kuwa ugu daaqsinka wanaagsan ahayd waxaana kale oo ka mid ah dooxada la yiraahdo Kili 30 sano iyada biyo ma marin dooxada Kabta Xoran waxay la mid tahay dooxada Kili dooxada Gowlalaale waa mid ka mid ah dooxooyinkii bariisamaadkii ugu daaqsinka wanaagsan hasaatay muddooyinkii dambe waxay goob boorku ka kaco dooxada Goddurwa iyadu waxa ay ka mid tahay goobaha ay xilliga dambe isugu imaan jireen reer Guraago hasaatay muddooyinkii dambe reer Guraa ma tagin cawsna kama bixin. Dharoor Valley Development waa ku dayo nimankan waa soo xilqaameen $100,000 bigishay in biyaha la xilxiyaan. muddo kadib ayaa waxaa deegaanka dharoor ee degmada isku shuban yimid dhalinyaro ka timid qurbaha kuwaas oo arkay dhibka ka jirta halkaas waxayna garowsadeen in xilligan dalkoodu garab uga baahan yahay isla markaasna deegaanada ay ka soo jeedeen wax uun u qabtaan. xirmada maamuuska oo meelade la xiray xirmada maamuuska oo meelade la xiray halkii muqdisho hamada filan oo ka rigay. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed waxaan ka mid ahay ururka dhawaan la bilaabay oo la yiraahdo Dharoor Valley Development waxaan ka shaqeynaa arrimaha nabad guurka iyo sidii loo soo nooleyn lahaa dhulka waxaan muddo hadda 2 sano ku mashquulsanayn bal inaan ka helno data ama information deegaanka Dharoor Valley iyo guud ahaanba Puntland waxaanu runtii keenay niman waxay yihiin khubaro ah iyagoo markaasi runtii macluumaad badan ka ururshay deegaanka sidii loogu xiri lahaa biyaha oo kale sidii loo ogaan lahaa ciidda iyo nooceeda ujeedaduna waxay tahay in la bedelo course-ka hadda jira oo ah in bal nolosha wax laga bedelo waad ogtihiin reer baadiyaheenu waxa way dhirtay jaraan dhuxul bay ka dhigtaan xiriye ku ootaan waxay runtii sameeyaan oo kaleeto in dhulkii uu noqdo dhul bannaan oo aan geeda lahayn taasina waxay sababtay oo ay keentay in dhulkii uu nabaad guuro haddii dhulka dhirta haddii la jaro dabaylaha imanaya waxaa dhacaysa nabaad guur ama erosions iyo boholood arrintaasu waxay ahayd arrin caam ah waxaad ogtihiin in boholo badan ay ka dilaaceen deegaanadaas runtiina biyihii ay boholahaasu qabsadeen ay biyihii noqdeen biyo aan laga faa'iidaysan hadda intaanu joognay
runtii waxaanu qabnay shaqo aad u badan, waxaanu keennay cagafyo iyo qalab, waxaanu ka shaqaynay dhulkii. waxaa biyo hadda lagu ceshay sida aad aragteen telefishinada ka aragteen dooxooyin badan oo ilaa 5 ah, qiyaastii 500 kilomitir oo isku wareega ayaa hadda waxay noqdeen dooxooyin la daaqo. marka runtii shaqooyin aad iyo aad u badan ayaa noo harsan. ujeedka aanu u nimina in Cabdiqaadir baa ka sheegay, runtii waxaa na wada oo ugu weyn adduunka maanta waxaa socda dhibaato soo socota oo dadku ay ku wada jiraan. dhibaatadaasoo runtii ah dhibaato biyaha ka timi iyo cunnada. dagaal xoog leh ayaa dadku ku soo wajahan. markaanu aragnay dhibkaa xoogga leh ama mugga weyn, runtii hiilaanu u nimi inaan horta annagu aanu ka badbaadno qurbaha iyo dhibkiisa, midda labaadna aanu la qaybsanno dadka yaga. waxaan rabaa inaan mahad celiyo nabadoon Axmed Cali Kibriide oo si fiican noola shaqeeyo Soomaaliya oo hagar la'aan. ilaahay baa keenay oo raxmadda rabbi baa shubay oo biyaha ilaahay baa keenay, balse inay dooxooyinka camiraanin oo buuxiyaanin waxa sababeeyay dhalinyaro timi oo ilaahay dalka una dhashay kana maqnaa haddana u timi baa sababaysay. mashruuc aad u balaaran bay ka qabteen oo khaasan iyaga gaar u ahaa, oo dhul badan biyaha ay ka xireen, oo dhul badan biyaha ay u fureen, oo hawlo badan ay ka qabteen, oo muddo badan ay la rafteen, oo dooxooyinka kor iyo hoosba ay xireen, xagga ka xiran xagga ka xiran xagga ka xiran, kuwa u fureen kuwa ka xiran. nimankaas mashruuc aad u balaaran bay ka qabteen, waana ku guuleysan. alla yaa baarig. alxamdulillaah rabbil aalamiin. khayrkan baa alla keenay, khayr baa soo maray, waa laga shaqeeyay, dad baa ka shaqeeyay khayrkaas. ilaahay baa ka shaqeeyay, dad buu ilaahay u diray. waxay sameeyeen biyo xirka ay sameeyeen, waxaa meelo badan baa biyihii loo duway, meelo badan bay galeen. meesha aad arkaysaan khayrka aad arkaysaan baa ka soo baxay. waxaa mahad ilaahay iskale dadkii ka shaqeeyay oo dhallinyaradii ka soo shaqaysay oo meel dheer ka timi oo ka shaqaysay. ilaahay baa mahadle, waa u mahad celinaynaa. maantana waa aragtaan say tahay, horena saxaray u ahayd. intay dhegaysanaysa ururkaasi waa jiraa, xafiisyo ayuu ku leeyahay Boosaaso ugu badan saldhigiisu yahay. marka waxaan dhihi lahaa wixii tabarucaada iyo wixii taageero ah, taageeradu kaliya financial maaha. arrintaas in la iska kaashado oo deegaanka iyo dowladda iyo shacabka iyo dhalinyarada iyo ardayda iyo qurbo joogta ay iska kaashadaan ayaanu abiil soo jeedinaynaa.